بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة بونتلاند مدن سعيد عبد الله دني أو هيليو مدحوينها كحجين كدولة مدن أحمد علمي عثمان كراش وحاي ما أنت هوري معدين قلها وكيل لدى دولة بونتلاند وهذا عن قصة جنهاي وطبعا أي كلن كان كوهليان قدوميها قلها وكيل لدى دولة بونتلاند قدومي عبد الرشيد يوسف جبريل عول قدومي كحجين ككواد قلها وكيل لدى دولة بونتلاند مدن عبد العزيز عبد الله عثمان iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee golaha wakiilada ee dawladda Puntland gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane Ismaaciil Maxamed Warsame xubnaha golaha wakiilada ee dawladda Puntland kulankaasi oo dabcan sidii aad qaybtii hore joogteen ahaa kulan albaabadu u xiran yihiin waa kulan wada tashi madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu la wadaagayaa golaha barlamaanka dawladda Puntland warbixin ku saabsan safarkiisii Muqdisho shirarkii uu ka qayb galay xaaladda uu dalku marayo iyo marxaladda uu dalku wajahay waxa uu kulanku yahay kulan wada tashi ah kulan kala warqaadasho ah kulan tala wadaag ah oo dabcan warbixinta kadibna ay xildhibaanadu madaxweynaha weydiiyeen su'aalo wada tashi iyo soo jeedin iyo aragtiyo kala duwan oo dhammaanba ku saabsan xaaladda guud ee uu dalku marayo dabcan tani waxay qayb ka tahay kulamadii uu madaxweynuhu waday tan iyo markii uu soo laabtay waxaad ogtihiin inuu xubnaha golaha wasiirada uu kulan la qaatay maalintii khamiista shirkii toddobaad la ahaa oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka uu marayo waxaa ogtihiin in xalayto uu madaxweynuhu qasriga madaxtooyada dawladda Puntland Garowe uu kulan kula qaatay mas'uuliyiin hore oo xilal ka soo qabtay Puntland siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahano iyo ururada bulshada rayidka ah wada tashiyadaas ayuu kulankana qayb ka yahay insha Allah marka wada tashiyadu waa sii socon doonaan qaybaha kale ee bulshada haray iyo dadka kale ee wax lagu tuhmayo iyo waxgaradka iyo dadka tabar iyo talaba kordhin kara marka ay madaxdu la kulanto waxa mustaqbalka dhici doona in Puntland ay soo saarto mowqifkeeda ku aadan muddo kororsiga aan sharciga ahayn uu sameystay madaxweynihii dawladda federaalka Soomaaliya Mohamed Abdullahi Farmaajo taasi oo Puntland mowqifkeeda kama dambaysta ay maalmaha soo socda ay ka soo saari doonto aad iyo aad baan idigu mahad celinayna doorkiina muhiimka